السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Muuqaalkan maanta waxaan kusoo gudbinaynaa taxane ku saabsan Man in the Middle Attack. Taxanahan wuxuu socon doonaa ilaa iyo 3 qaybood, wuxuuna ku saabsan yahay qaybo kala duwan oo ka mid ah Man in the Middle Attack. Haddaba Man in the Middle Attack siduu u shaqeeyaa? Kombiyuutarada sida caadiga ah marka ay ku jiraan local area network, waxaan ka hadlayno waa local area network oo ah devices ama kombiyuutaro isticmaala same network oo ku jira hal network. Sida caadiga ah marka waxay ku wada xiriirsan yihiin switch ama device xiriiriya ayaga dhan, kadibna waxay ku sii xiriirsan yihiin gateway oo ah halka ay uga sii baxaan ama ay u sii maraan internetka oo aan ay soo gaabinayno. Kaba soo qaad computer A marka uu rabo macluumaad inuu u doonto internetka, wuxuu u maraa gateway-gana macluumaadkii markuu internetka uu ka soo helo wuxuu u soo gudbiyaa computerkii codsaday macluumaadkaas. Man in the Middle Attack marka siduu u shaqeeyaa? Kaba soo qaad ninkan inuu yahay mid ka mid ah kombiyuutarada ku xiriirsan local area network-gan oona yahay attackerka aan u bixino H oo aan ka wadno hacker, kana aan dhahno T oo aan ka wadno target. Marka scenario-ga muxuu yahay marka ama concept-ga Man in the Middle Attack muxuu yahay? Halkii client-ga ama machine-kii caadiga ah uu warbixinta u marsiin jiray gateway-ga, hadda wuxuu markaan u soo marsiinayaa hacker. Uu leeyahay hackerka wuxuu iska dhigayaa in uu yahay gateway-ga, macluumaadkii client-ga ka soo baxay waxay soo marayaan hackerka, kadibna wuxuu u sii xawilayaa gateway. macluumaadkii gateway-gana waxay soo marayaan hackerka, kadibna hackerka wuxuu u sii xawilaa client-ga. Sidaas ayuu yahay concept-ga ama aragtida Man in the Middle Attack. Bal marka ayadoo faahfaahsan command-ga iyo sida loo set up gareynayo aan aragno sida uu yahay. Taxanaha koowaad ee maanta ee ugu horeeya aan soo jeedin doono wuxuu ku saabsan yahay ARP spoofing iyo application kale oo lagu magacaabo Ethercap oo asagana noo sameyn doono ARP spoofing iyo other type kale oo Man in the Middle Attack ka mid ah. Haddaba si aan u sameyno marka Man in the Middle Attack, waxaan isticmaali doonaa tool loo yaqaan ARP spoof. ARP spoof marka aan sameynayno marka laba terminal aan isla furayna hal mar, kadib command-gan aan qorayna. Command-gan muxuu yahay marka? Waxaan leenahay sudo as a root wax igu run garay ARP spoof oo toolka isticmaaleyna ah -i oo interface ah u taagan. Interface-kaaga gelinaysaa. Ana hadda interface-kayga waxa waaye ETH0 haddaad dhahayd ifconfig, yani halkaanaad ka arki kartaa ifconfig, halkana ETH0 waa interface-ka aan IP address-ka iyo network-ga aan ka helayo. So ETH0 aad gelinaysaa -t oo target-kaaga ah. Target-kayga marka waa 192.168.200.193 oo ah target-kayga oo window-ga oo aan rabo in aan khaldo. Haddaad fiiriso hadda window-gayga waxa waaye IP address-ka wuxuu wataa IP address version 4 maxaa waaye 193 ayaa u dambeeyo. Gateway-gaygana maxaa waaye 240. Window-gana IP address-kan oo 240 u dambeeyo network u sii maraa, anigana ama attackerka Linux-kana 240 u sii maraa. Haddii aad rabtidna waa sii hubin kartaa oo waxaad dhihi kartaa clear the screen, then waxaad dhahdaa route-n. haddaad fiirisid waa kana gateway-ga same aan nahay, same network wada jirnaa. saas daraadeed marka waxaan leeyahay concept-ga marka muxuu yahay? Waxaan leeyahay target-kan 193 waxaan leeyahay 193 marka aad rabtid inaad internet-ka martid aniga isoo mar oo aniga ayaa ah gateway-gaaga u dambeeya 240. 193 ayuu aniga ii maleynayaa inaan ahay. Isla sidaas oo kaleete isla command-gana waxaan gelinayaa sudo, waxaan leeyahay -i way isaga mid yihiin, kaliya waxaan soo horumarsiinayaa gateway halkii markii hore uu client-ga soo horumarsanaa ama target-ka soo horumarsanaa. Gateway-ga isagana sidoo kale maxaan leeyahay computer-ka u dambeeya 193 aniga waaye oo macluumaadka u waday 193 aniga isoo marsiiyay. Command-gan marka haddii aan hadda sidan run aan dhaho waxaa isbedelayo ARP table oo ah table oo lagu keydiyo IP address walbo iyo device-ka IP address-kaas iska leh ama u isticmaala. Haddaan hadda fiirino window-ga aan dhahno ARP-a waxaa ujeedaa computer-ka gateway-geena ah wuxuu leeyahay MAC address-kan waana MAC address-ka saxda ah uu leeyahay. Concept-ga marka muxuu noqon doonaa? Mar alaala markaa run dhaho wuxuu isku bedeli doonaa in gateway-ga uu isku bedelo MAC address-ka Linux-ka uu leeyahay. MAC address-ka uu leeyahay Linux-ka ayaa waxaa bedelmi doona MAC address-ka uu leeyahay gateway-ga. maxaa dhici doona marka? Waxaa dhici doono in uu u maleeyo computer-kan gateway-ga in uu yahay Linux. Macluumaad walba oo gateway-gan uu diri lahaa
yuu dira physical address halkan ku bedelmay oo ah Linux ku u diri doona wuxuu u maleyn doonaa inuu yahayba gateway inuu yahay u maleyn doonaa marka inta aanan run dhihin waxaan ka hormarinayaa command ogolaanaya in uu Linux-ka u kala xawilo macluumaadka gateway-ga iyo target-ka maxaa yeelay hadda marka command-gan run dhahdid wuxuu u dhigmaa inaad target-ka leedahay waxaan ahay gateway inaad gateway-gana aad leedahay waxaan ahay target-ka marka waa in aad awood u leedahay marka inaad macluumaad kala xawili kartid waxaa jira marka command loo isticmaalo wax kala xawilitaanka oo la dhaho مثلا tusaale ahaan haddaad dhahdid cat prot -sys -network -ipv4 -ip forward ip forward kan marka wuxuu sahlayaa in aad wax kala xawili kartid hadda waa 0 oo wax ma kala xawili karo marka waxaan leeyahay echo waxaan leeyahay 1 ka dhig meeshan then greater than command-gan geli command-gan marka wuxuu sahlayaa di aan verify gareyn aan hubino hadda waa okay command-gan marka wuxuu sahlayaa in ip forwarding uu sameeyo oo macluumaad uu kala xawili karo Linux-ka maadaama uu dhexda u gali rabo labada party saas daraadeed marka hore waxaan ka hormarinaynaa in aan RP spoofing sameeyno horta inaan xawilaada ogolaano oo ip forwarding sameeyno kadib aan waxaan leenahay halkan waxaan leenahay enter wuxuu weydiinayaa password halkan waxaan leenahay enter isagana wuxuu weydiinayaa password maadaama aan u sameynayno as root marka maxaa dhacay marka hadda aan fiirin window aan ku laabano then window-ga hadday wuxuu aaminsanaa gateway inuu yahay MAC address-kan oo ah kan saxda ah mar kale aan arrow key-ga aan up dhahno then enter then maxaa dhacay halkan fiiri hadda muxuu isku bedelay MAC address-kii uu lahaa Linux-ka ayaa wuxuu yeeshtay gateway-ga IP address-kiisa isla sidaas oo kale MAC address-kii Linux-ka haddana wuxuu leeyahay IP address-kii Linux-ka marka hal device laba IP address ma wada yeelan karo saas daraadeed hadda victim-ka oo ah computer-kan window-ga hadda kadib macluumaadkii uu gateway-gan u wada intuu u marsiinaa machine-kan u marsiinaa marka sidaas waxaa halkan ku dhacay wax loo yaqaano RP spoof intaan waa concept-tii koowaad anagoo isticmaaleyna wax loo yaqaano RP spoofing now marka haddii aan rabno marka sidaan manual-ka oo maanta dhan terminal inta la soo kiciyo terminal kale la kiciyo in laga gudbo hal tool la wada isticmaalo anagoo RP spoofing sameynayna ma la heli karaa waxaa jira tool kale oo lagu magacaabo ettercap kan aan hadda iska xiro close aan dhaho waxaan rabaa marka hore inaan baraarujiyo haddii aad RP spoof tool adoo isticmaalayo aad internet-ka aaweysid waxaa sameysaa computerada restart u dir ama demi power off ama shutdown dheh kadibna soo shid si uu IP address u helo maadaama RP spoof aa sameysay table-ka khalkhal ku dhacayo isbedel ku imaanayo marka inuu dib IP address u helo ama MAC address-kii uu dib u saxo inay ku adkaataa laga yaabo marka demi kadibna daar haddii weli cilada ay taagan tahay gateway-ga demi ee daar kadibna computerada demi ee daar wax walba okay noqonayaan markaan aan tijaabino tool lagu magacaabo ettercap sida halkan kaaga muuqata waa tool application loogu talagalay inuu howsha noogu sameeyo qaab automatic ah waxaan leenahay no shit then hadda wuxuu bilaabayaa start sniffing inuu sameeyo network inuu arko waxaan marka hore sameynaynaa scanning calaamadan waxay u taagan tahay scan iyo sameey hadda wuxuu soo qabtay local area network-gan isticmaalayo in ay ku jiraan 3 host inay ku jiraan 3 host hadaan isoo list gareeyay calaamadan waxa waa list iyagu soo sameeyay host list wuxuu helay 193 oo ah computerka window machine oo target-keeni ah 193 saan u hubino marka window-gan imaanayna waxaan leenahay cmd-ga gal ip config 193 window-ga okay gateway-geena waxa waaye 223 bal aan hubino marka ip address okay ip address-keyga waa 243 gateway-gana maxaa uu ka aaminsan yahay 223 okay same gateway haysanaa window-gana gateway-giisa maxaa waaye waa 223 okay marka anaga waxaan target gareysanaynaa labadan computer target-keena koowaad 193 waaye target-keena labaadna gateway-ga waaye kan iska cancel waxaan leenahay target-keena koowaad yaa waaye 193 asaga waxaa leedahay select kadibna waxaa leedahay add target-keena koowaad halkan host oo noogu diray hal target-keena labaadna waxaan leenahay yaa waaye waa 223 kadib waxaan leenahay add target 2 marka iyo target 1 labadan target waxaa kaloo ugu dari kartaa halkan targets inaad dhahdid kadibna waxaad dhigi kartaa select targets halkan ku dari kartaa IP address-ka target 1 ku dareysaa kadibna IP address-ka target 2 kadibna okay aan leedahay labadaas waa lagu dari karaa marka si aad u sameysid marka RP spoofing ama RP poisoning halkan
ayaad waxaad siinaysaa click waxaa ku jiro man in the middle attack noocyada uu sameyn karo. anaga maxaa rabnaa arb poisoning oo aan kusoo aragnay ayadoo manual ahaan ah qaybtii hore. waxaa kusoo baxayso marka arb poisoning click siisid labadan option anaga midka koraan dooranayna ayaan leenahay. hadda wuxuu bilaabay arb poisoning victims oo labadii target ah. sidan marka uu yahay marka hadda waxaa ku bilaabanayo in uu sniffing ku sameeyo ama uu capture gareeyo datada ka imaanaysa windowga uu u gudbinayo gatewayga, sidoo kale datada ka imaanaysa gatewayga u gudbinayo window. waxaad dhihi kartaa view, waxaad dhihi kartaa waxay tusisaa profile waxa dhacayo tusi halkan waxay ka dhici doona. let's haddii marka aan tagno computerka windowga aan kicino internetka dibna aan dhahno waxaad samaysaa facebook.com then halkan haddaa imaadid hadda waxaa ujeedaa in uu capturing uu sameeyey waxaa ujeedaa inuu facebook.com uu capture gareeyay, sidoo kale facebook.com linkeedii usii mara xitaa uu capture gareynayaa. sidoo kale haddii aad gashid mathalan aad dhahdid salambank.so aad tiri then salam bank aad booqatay then maaragtay haddii aad tagtid computerka linuxka aan fiirino ninkan muxuu kaluu sameeyey meesha maxaa kaaga muuqata kan wuxuu gali salam bank. so halkan waxaan ka ogaan karnaa marka wax walba oo macluumaad email walba uu booqday qofka victimka ah. sidoo kale haddii qofkan victimka ah sida hadda aanu arkayno meelaha uu booqday waxaan kaloo arki karnaa contentigii ama waxyaabihii uu geliyey website-yada. mathalan credit card hadduu meel uu geliyey, haddii username password uu meel uu maaragtay social media ama facebook waxaas uu geliyey waa arki karnaa haddii uu yahay http. halkaas waa muhiim. haddii laakiin uu yahay https hadduu yahay awood uma laha ethercap. laakiin muuqaaladeena dambe waxaan isticmaali doonaa tuulal ka awood badan ethercap uu xitaa uu capture gareynayo ama kuu soo qabanayo haddii clientiga geliyo macluumaad muhiim ah website-yo isticmaalayo https. marka aydan gadaalan ka arki doonaa. tusaale ahaan haddii aan dhahnado unicornitems.com waa website http ah. website-kan http waaye. haddii hadda website-kan aa imaadid oo for test camal aad dhahdid my account then my account halkan aad gelisid aad dhahdid katib account-keyga waxa waaye katib then at gmail.com aad dhahday kadibna halkan waxaa gelisid passwordkaaga password 123 aad dhahday kadib login aad dhahday. maadaama http uu yahay uu sameynayaa ethercap wuxuu awood u leeyahay inuu capture gareeyo. wuxuu leeyahay hostigii wuxuu geliyay username la dhaho katib@gmail.com passwordkiisana wuxuu ahaa password 123. marka website-kaas informationka laga helayn waa website-kan wuxuuna sii galay page-kan my account la dhaho. any website oo http ah informationkii uu geliyey qofka clientiga ah ama victimka ama networka ku dhex jiro wuu soo capture gareynayaa ethercap. marka laakiin waxaa ogaataa haddii https uu yahay ma soo capture gareyn karo oo ma soo qaban karo. laakiin haddii website http protocol isticmaalayo aad content gelisid oona qofka attackerka ah uu kugula jiro local area network same network aad isticmaalaysiin macluumaad walbo aad gelisid website-kaas http protocol isticmaalayo aan isticmaalaynin wuu arki karaa qofka man in the middle attackerka ah. halkan waxaa noogu ekaaday taxanaheena qaybteena koowaad ee arb poisoning. haddii aad rabto marka in aad ethercap joojisid ama arb poisoningkan aad joojisid halkan waxaa leedahay stop man in the middle attack then stopping man in the middle attack. halkan marka waxaan ku joojinaynaa taxanaheena qaybta koowaad. taxanaheena qaybta labaadna waxaan kusoo qaadanaynaa bettercapna run ahaantii waa more advance uu leeyahay awood uu ku break gareyn karo website-yada SSL isticmaalayaan ama HTTPS protocol isticmaalayaan in uu break ku sameeyo ama uu jibiyo ama uu macluumaad ka soo dhex qabto ayuu isku dayahay ama awood u leeyahay bettercap. inta aan muuqaalka labaad ee aan ku faahfaahin doono bettercap ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.